بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية فدرالka ee Soomaaliya mudanayaasha labada gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka federaalka ah gudoomiyaha madaxweynaha dawladda Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaankiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ku-xigeenada iyo dhammaan marti sharafta kale waa salaamintiin waqti dambe lagu jira hadalka naguma dheerayn doono anigii odawaa maanta wax badan aan la sheegay waxaan rabaa dhowr wax inaan arintaas ka iraado hadii alla idmo horta anaga arinta Galmudug waa lagu gardaadiyay maalintiina la dhaariyay maalinta ku xigta madaxweynuhu wuxuu yiri diyaarad helicopter airport taaga soo kora maalintaasaan helicopter la korno dhuusamareebaan ka deganay anagoo hal maalin bixilka nala dhaariyo aanan kursiba xafiis ba tagin aan madaxweynaha dhuusamareeb u raacnay halkaas aan kala soo anbaqaadnay runtii sagaal goor kadib maanta markii tobnaad ay tahay halkan aan imaado waxa runtii wax lagu farxo ah annagoo dhan aan ku naaloonna maanta in meeshaan aan soo gaarnay maamulkii dhamaystirmay dib badan iyo sabar badan laga soo maray kadibna meeshii la rabay in la gaaro runtii mahadcelintu waa badnayd dad badan loo mahadceliyay anuu si gaar waxaan rabaa runtii inaan ugu mahadceliyo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada halkan ka jiray Galmudugtii hore awoowe Cabdi Qaybdiid iyo Baarleex oo si gaar ah aan sula shaqeynay maalintii koow markaan halkan nimid oo aan oday Cabdi Qaybdiid u nimid aniga iyo wasiir odawaa iyo ilmo dhalo eego wuxuu yiri maxaa heedeen markaas aan niri wasiirada dawladda soo dirtaanayo arrinta loo soo diray warbalaaya ka dhacday waxaan maxay ahay aniga iyo koox anago ah qolaan isku soo xiranay waa soo u sheegay hadaayo libaxnina aqoona lax ka ritaaliiriye anagu ninkan ma aqooni waxaan niri waxa sheegay wax ka jir lama arko waxaan ka yeelin wala meeshan waa ka eriyeenayna marka odaga Baarleexay saaxiib ahaayeen oo habeenkii noo yimid wuxuu yiri warani ma yoomo ogtiin 40 technica inay meeshan u tiirsantahay odagan marka xoogaa markaas aan hoos isu dhignay Baarleex ninkii meeshan ay ku kala socoto runtii ahaa markay sheekada naga xiranto ninkii kala furfurayay farsamayaqaan weyn oo ahayo horta mid oo ku fiicnaa odaga Cabdi Qaybdiid oo noo dhaxeeyay waa isu keen dhadhaweynayay mararka qaar koodna asaan ugu soo jeesanayo markuu ugu soo jeesto waxaan ka garan jirnay internetka oo naga dansan jiray anigii odawaan waxaan lagu xantaa inaan Facebook aad u jecelnahay marka hadii internetka naga dansado ma noolaa karno intaas oo ogaade marka habeenkii internetka naga dansay hadda maanta markaan soo galay inta hoolkan internetka isaga kay jiri jiray telefoonku waa fiiriyay internet ma leh marka waxaan iridaa xagee baashu ka qaldan tahay runtii wasiir odawaana mahad gaar ahaan rabaa inaan u celiyo hawshii weyneed oo meeshaan ka galay hadaayo waxa la yiri labada wasiir saaxiibna waa ahaayeen waxna waa kala wadeen annaga runtii waxa ugu muhiimsan waxay ahayd faalan dhigi jirnay baash waa faali jirnay waxaan dhigi jirnay maanta meel xunay maray inta ma u ridnaa mas inta u ridnaa markii gudoomiyaha baarlamaanka la dooranay aan faalka isla dhigno waxaan leeyahay inta ma u ridnaa mas inta loo ridaa leeyahay tii madaxweynaha markii la soo gaarna faalkii oo kala sameeyno inta u ridnaa iyadan marka wax weyn ma bixin wixii dadku u kala qaybinay ee dadku iska heshiyaan runtii laakiin sida dhabta waxay tahay waxa ugu weyn oo heshiiska aan ku ahayn waxay ahayd processku inuu fair noqdo processki in dadka oo dhan ay iskula jiraan ay wada joogaan ay ku nagaadaan waxaan rabaa inaan runtii kusoo gunaanado hadalkayga madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan maamulka Galmudug caawa ugu dambaysa in leedila dabaaldego oo ma aragtay xaflada leedila dhigo waa leedika tagi doonaa bari dadkan idin soo gurmado dhan waa idinka tagi doonaan hawl weyn ay idin taala ani waxay la tahay afar qodob ugu muhiimsan waxa idin yaala midda koobaad aad looga hadlay oo ah dib u heshiisiin dadka naga maqan ahlu sunna ugu horeyso in la raadiyo maamulka lagu soo daro qayb ay ka noqdaan wax ku yeeshaan midda labaad waxay tahay dawladnimada Soomaalidu federaalka waxay u maleeyaan madaxweyne dawlad goboleed kaliya in la doorto laakiin dawlad federaalnimada rasmiga ah waa markii degmooyinka la gaarsiiyo dawlad goboleedyada hadda jiro oo dhan runtii waxa lagu saluugi karaa in aysan dawladnimada gaarsiinin heerka degmada aysan gaarsiinin oo macnaha ma aha inaysan dawlad ka jirin
laakiin in sida la isu doorto heerka dowlad goboleednimada heerka degmadan la isaga doorto arrintaas muhiim gaar ah ay leedahay gobolkan 10 degmo ku taala madaxweynaha iyo maamulkiisa waxa laga rabaa 4 sano kadib 10kaas degmo oo maamul is doortay leh saas uu federaalka ku taabageli karaa qodobka saddexaad wuxuu yahay anu Soomaalida 6 bilood oo hadda aan mas'uul ahaa haddii wax ii kordheen waxa Soomaalida isku haysato waxaan u haystaa inay koow ka yihiin saboolnimo iyo abaar iyo gaajo inay koow ka yihiin maamulka cusubna dhulalka Soomaaliya ugu dhibka badnaa ayuu maamul ka yahay waxa laga rabaa dadka Soomaalida in la abaar bixiyo dhaqaale maaragtay loo sameeyo midda ugu dambeysana waxay tahay in sidii la yiri waaye runtii sida maanta maamulka lagu dhiso xalaasha ahayd oo tartanka ahayd oo hufnaanta ahayd in midda soo socotana 4 sano kadibna runtii la baahiyo oo loo yimaado maamul isdoorta oo maarkino wax isu ogol intaasaan dhihi lahaa mar kale waa u hambaliyeenaynaa shaqada wanaagsan oo dadkii halkan ka qabto aad ku badnaayo maanta oo dhan loo hambaliyay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha saaxiibkay Cabdiraxmaan Odawa